dowladda Soomaaliya ayaa laashay dacwadda kiisaskii loo haystay wasiirkii amniga maamulka Jubbaland. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laashay dacwadda loo haystay kiisaskii loo haystay wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan. waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday tillaabooyin dhowr ah si meesha looga saaro dacwadda loo haysto Cabdirashiid Janan. dacwaddan ayaa waxaa laalay sida la xaqiijiyay xafiiska xeer-ilaalinta guud ee qaranka iyo weliba sidoo kale hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da. waxaana warqad dhowaan ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir lagu socodsiiyay hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da, waxaana la ogeysiyay xafiiska xeer-ilaalinta xafiiska xeeralyaha guud ee qaranka. ujeedada ayaa lagu sheegay in gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir markuu arkay galka sumadiisu galka lagu baarayo isla markaana ka furnaa maxkamadda gobolka Banaadir laguna daabaxay dacwadaha loo haystay Cabdirashiid Janan. sidoo kale markuu arkay warqadaha cadeynaya dambiyada iyo weliba amarka soo qabashada ee eedeysane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, markuu arkay warqada taariikhdeedu ay tahay 22 bishii 3 ee 2021 ujeedadeeduna ahayd gal xirid kana soo baxday xafiiska xeer-ilaalinta guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 7 ee waa xeer-ilaalinta dalka. waxaa lagu sheegay in sidoo kale markuu xeeriyay qodobada qayb ee arrimahan quseeya markuu tixgeliyay arrimaha guud ee cadaaladda, waxa uu soo jeediyay sidaas daraaddeed maxkamadda gobolka Banaadir waxay aqbashay ee lagu yiri galxirka uu sameeyay xafiiska xeer-ilaalyaha guud ee qaranka oo eedeysana uu ku ahaa Cabdirashiid Xasan Cabdinuur si waafaqsan qodobada arrimahaasi quseeya, waxayna xirtay si waafaqsan qodobka 76 ee 77aad ee xeerka habraaca eedeysanayaasha. galka sumadiisu ay ahayd isla markaana ku taariikhaysnaa 2019. waxaana warqadan sidoo kale lagu sheegay waxaana lagu socodsiiyay warqadan la sheegay inay ka soo baxday xafiiska xeer-ilaalinta guud ee qaranka maxkamadda gobolka Banaadir. ujeedadiisuna waxaa lagu sheegay garxiris. xafiiska xeer-ilaalinta guud ayaana la sheegay inuu arkay warqado dhowr ah oo lagu eedeeyay Cabdirashiid Janan isla markaana uu ka codsaday ama u soo jeediyay maxkamadda gobolka Banaadir in gabi ahaanba la xiro galka dacwadda ee loo haystay eedeysane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo inta badan saameyn ku lahaa deegaanada maamulka Jubbaland. dhowaana dowladda federaalka Soomaaliya ay dhowr jeer eedeysay. waxaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska xeer-ilaalinta markuu dhageystay tala soo jeedinta baaritaanada iyo weliba xeeralyaha kiiska gacanta ku hayay iyo weliba qodobada sharciga ah ee la isku hayay. markuu sidoo kale arkay danta guud ee cadaaladda ee lagu laalay, wuxuu go'aamiyay xafiiska xeer-ilaalinta guud ee qaranka inuu xiro galdacwadeedkii ka furnaa xafiiska. waxa uuna maxkamadda gobolka Banaadir uu ku socodsiiyay in ay dhammaystirto isla markaana guud ahaanba la xiro galdacwadeedka loo haystay eedeysane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland oo dhowaan heshiis la galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana inta badan dhinacyadu ay sheegeen in guud ahaanba marka la fiiriyay qodobada qaabilsan arrimahan la xiray galdacwadeedka wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo inta badan ay dagaalo kala dhaxeeyeen dowladda federaalka Soomaaliya si meesha looga saaro khilaafaadka xilligan taagan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan heshiis la gashay Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland oo xilliyadii ay soo baxdeen heshiis uu la galay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay uu madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe
xilkii madaxtinimo ka qaaday waxaana dhinacyadu ay u muuqdaan hadda in la xirayo galdacwadeedka eedeysanaya cabdirashiid xasan cabdinuur janan wasiirkii amniga maamulka Jubbaland oo dowladda federaalka Soomaaliya xilligan ay sheegtay in gabi ahaanba galdacwadeedkiisi la xiray waxaana warqadaha lagu xiray galdacwadeedkiisa ay ka soo baxeen xafiiska xiriirlinta guud ee qaranka iyo waliba sidoo kale waa maxkamadda gobolka Banaadir oo labaduba isku raacay in gabi ahaanba la xiro isla markaana la laalo dacwadda kiisaskii loo haystay wasiirkii amniga maamulka Jubbaland maadaama xilligan heshiis uu la galay dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana ciidamadiisii uu la dulfadhiyay gobolka Gado oo dagaalo uu kula galay ciidamada dowladda gabi ahaanba uu ku biiriyay dowladda federaalka Soomaaliya cabdirashiid xasan cabdinuur janan wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland ayaa hadda ku sugan magaalada caasimadda ah Muqdisho waxa uuna ku sugan yahay inta sida la aaminsan yahay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka walow sida ugu soo biiray dowladda federaalka Soomaaliya ama heshiiska oo la galay kadib markii Muqdisho ku soo laabtay aan lahayn wax wara oo ka soo baxay iyo waliba tilaabooyin uu qaadayo haddii uu siyaasadda ku sii jiray iyo haddii waliba uu xilligan ka baxayo siyaasadda guud ee dalka waxaana la aaminsan yahay in hadda uu ku sugan yahay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyadoo taliyaha hay'addaasi ay ku kulmeen gobolka Gado isla markaana ay wadiimaadeen magaalada caasimadda ah Muqdisho lamana oga tilaabooyinka rasmiga ee xilligan uu qaadayo iyo waliba sidoo kale goobaha rasmiga ee goobta rasmiga ee uu ku sugan yahay shirarka looga hadlayay ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka ayaa maanta mar kale ka bilaabanaya magaalada caasimadda ah Muqdisho shirarkan oo inta badan looga hadlayay arrimaha la xiriira ismariwaaga doorashada Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galayay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya musharaxiinta mucaaradka beesha caalamka hoggaanka maamulada iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin xubnaha siyaasad ahaan xilligan dhaqdhaqaaqa guud ahaanba siyaasiyiinta u taagan xilka ugu sarreeya dalka iyo kuwa inta badan ba la soo kala shaqeeyay xilligan la kala safan ayaa u muuqda kuwo guud ahaanba saameyn ku leh arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka Muqdisho waxay maalmihii dambe marti gelinaysay xulafooyin siyaasadeed iyo waliba sidoo kale dhinacyo isku diidan arrimaha la xiriira siyaasadda dalka gaar ahaan doorashooyinka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya hoggaanka maamulada iyo gobolka Banaadir ayaa maalmo kadib beesha caalamku khasbeen in ay ku kulmaan magaalada caasimadda ah Muqdisho toddobaadyo ay dhinacyada isdiidanayeen isla markaana la isku jiiday teendho ku taala Visioni ayay ahayd dhawaan markii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hoggaanka maamulada iyo mas'uuliyiin iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay kulamo ku qaateen walow kulamadaasi ay ka maqnaayeen hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo waliba Jubbaland madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale sheegay inay ku baaqeen kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka walow hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ay cadeeyeen in kulamadaasi ay soo abaabuleen isla markaana ay ka dambeeyeen beesha caalamka wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligaasi sheegay in madaxweynaha dowladda dhexe ee Soomaaliya uu casuumay hoggaanka maamulada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inta kalena waxa uu sheegay sidoo kale saameyntooda in xilligan ay tahay mid muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed doona baahan yahay inay ka qayb galaan shirarka looga hadlayo ismariwaaga ka taagan doorashada dalka cadaadis la aaminsan yahay beesha caalamku inay saaraysay madaxda dowladda ayaa sababay in ay ku kulmaan magaalada caasimadda ah Muqdisho isla markaana wax la iska weydiiyo arrimaha wali hor taagan doorashada Soomaaliya laba maalmood ayay ku kulmeen magaalada caasimadda ah Muqdisho shalana waxay u ahayd maalin nasiina waxa la filayaa maanta mar kale in dhinacyadu ay gorodda isgeliyaan isla markaana laga wada hadlo arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya iyo guud ahaanba siyaasadda dalka hogaamiyaasha maamulada ayaa loo arkaa inay kala jaban yihiin isla markaana qaybtooda ay aad ugu dhow yihiin Villa Soomaaliya halka kuwa kalena ay aad uga fog yihiin siyaasadda Villa Soomaaliya waxaana sidoo kale la aaminsan yahay in qaybtood dhinacyo kale ay ka talageliyaan arrimaha la xiriira doorashooyinka maadaama xulafooyin kala duwan ay ku kala jiraan hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa dhawaan waxa ay qayb ka noqdeen amaba wax ka aasaaseen madasha la baxday badbaado qaran oo hogaamiyo gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya
oo isagu sheegay inuu matalayo siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee Somaliland oo xilligan matalaad rasmi ah ku lahayn xubnaha ku shiraya teendho ku taala Afisiyoni. waxaa la filayaa maanta mar kale in teendhadaasi dib la isugu laabto. madaxda dowladda ayaa iyagu ku antacoonaya in shirkan ay soo abaabuleen isla markaana ay gadaal ka riixayaan, balse hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland waxay aaminsan yihiin shirkan inuu ka yimid cadaadis beesha caalamku ay saartay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo dhawaan ka hadlayay shirkan ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dhinacyadu ay isku yimaadaan waxna la iska weydiiyo ismariwaaga iyo arrimaha xakirnaanta ee doorashada dalka iyo guud ahaanba siyaasadda. waxa uu sheegay in wax beel caalam la dhaho aysan ka jirin gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho soona imaan teendhada Afisiyoni ee shirarku ka socdaan, balse uu yahay shirku kii ugu baaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayna ka soo qayb galeen hogaamiyaasha maamulada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo uu heliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaase warbaahinta waa xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada maamulka Puntland u shaaciyay in shirkan uu ahaa mid ay soo abaabushay beesha caalamka isla markaana aan loo gudagelin kii rasmiga ah ee beesha caalamka ka qaybgali lahayd isla markaana ay korjoogtayn lahayd. waxayna sheegeen in dhinacyadu mar walba loo baahan yahay in tallaabooyin rasmiya la qaado si meesha looga saaro wax walba oo isfaham waa keeni kara. madaxda dowladda iyo hoggaanka maamulada ayaa la sheegay inta kulamadan socdeen in dhinacyadu ay wadaan garnaqsi toos ah isla markaana wax la iska weydiinayo hanaanka loo wajahayo arrimahan. musharaxiinta mucaaradka ah iyo weliba sidoo kale hogaamiyaal uu ka mid yahay gudoomiyaha aqalka sare ee dalka ayaa doonaya in laga qaybgeliyo shirarkan ka soconaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. madaxda dowladda ayaa soo muuqda kuwa ka cagajiidaya in shirarka ay ka qaybgeliyaan xubnahan maadaama arrintu sii cakirnaanayso isla markaana ay dhinacyada dooda wada sii badanayaan. beesha caalamka ayay dhowr jeer xubnahan ka dalbadeen in laga qaybgeliyo arrimaha masiiriga ka tashigooda iyo ay ka talinta arrimaha Soomaaliya gaar ahaan kuwan xilligan doorashada dalka, balse beesha caalamka ayaa u muuqata inay ka cagajiidayso inay ka jawaabto dalabka xubnahan ka imaanaya. beesha caalamku waxay mar walba ku adkeysanaysaa in heshiiskii 17 Sebtembar sanadkii tagay lagu dul shaqeeyo, kaasina marna boos u banayn mayo musharaxiinta mucaaradka iyo hogaamiyaasha kale ee xilligan doonaya inay ka soo dhex muuqdaan teendhada Afisiyoni waxna ka go'aamiyaan arrimaha masiiriga ah ee dalka. balse waxay muuqdaan hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland in ay u tala saarteen in afkooda ay ku hadlaan isla markaana aysan u soo qaadin wax dhinacyadaasi aan u cuntamin. waana midda inta badan shirka ka dhigaysa mid aad u cakiran, dhinacyaduna ay isku diidaan mowqifyada la kala istaagana ay noqdaan kuwo adag oo mid walba dhankiisa uu ka adkeeyo inuusan ka tanaasuli karin waxyaabaha qaybtood ee la qaadayo. hogaamiyaashan ayaa hadda waxaa la filayaa inay qaataan tillaabooyin dheeri ah, waxaana xubno ka tirsan kuwa ku dhexleh qaramada midoobay codka qayaxan ee veto-ga ay sheegeen in tillaabo rasmi ay ka qaadi doonaan dhinacii laga waayo wax tanaasul ah isla markaana aan loo dulqaadan karin in arrimaha gaarka ah dhinacyadu ay xilligan ka daba wareegaan laguna adkayso mid walba iyo weliba halka u arko in danihiisa gaarka ah ay ku jiraan.